السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أصحابتنا قالقة مeel kastoo joogtaan iyo si walbo ay wakhtigu idin yahay waxaan idin leeyahay insha allah khayr iyo baraaro ku waara insha allahu tacaala waxaan maanta idiin soo gudbinaynaa muuqaal aan rajeynaya inuu xiiso gaara idin leeyahay ama noo lahaan doono muuqaalkaas wuxuu ku saabsan yahay midhaha loo yaqaano cambaha kaas oo aan filayo cid kasta oo naga mid ah inay taqaano maadaama uu yahay shay caan ah oo inta badan aan cunno qaas annaga haddaan Soomaalinahay dhulkeenna aad buu uga baxaa aadna waan u isticmaalnaa inta badan hadday noqon lahayd cabitaan aan ka dhigano hadday noqon lahayd sidiisa kale inuu cabno maadaama aan soo ogaaday xogna ku helay in cambuhu uu yahay shay aad u faa'iido badan inta aan malaynay in ka badan oo faa'iida uu leeyahay ayaa waxaan jeclaystay asxaabay inaan idinla wadaag idin kara si aad uga faa'iidaysataan horta taariikh ahaan cambaha wuxuu ka soo jeedaa waddamadan isku yidhaahdo indianiska laisku yidhaahdo asia waddamadaas oo hadda u kala baxay dhowr waddan sida india bangaladesh sri lanka iyo bakistan asalahaan horta halkaas ayuu ka soo jeedaa muddo sida la sheego 4,000 oo sano ka hor ah ayay ahayn dadkaas indianiska dad aad u isticmaala cambaha hadday tahay xag cunno ahaana iyo xag dawo ahaanbahba tan iyo intaas wixii ka dambeeyey cambuhu wuxuu ahaa shay dhulul badan lagu beero gaar ahaan dhulka kuleelaha ah sida waddankeenna oo kale waddankeenna meelo badan ayuu ka baxaa dhulyo badan oo ka mid ah waddankeenna wuu ka baxaa dadkeenuna aad bay u isticmaalaan laakiin dad badan ayaa weli ku baraarugsan faa'iidooyin badan oo cambaha uu leeyahay iyo weliba faa'iidooyinkaas oo u badan xagga caafimaadka cambaha sida la sheegay wuxuu u fiican yahay cambaha sida la sheegay dhowr cudur oo hadda waddankeenna si weyn yacni fara ba'an noogu haya ayuu u fiican yahay waxaa ka mid ah tusaale ahaan xagga dheefshiidka cambaha qofka cuna wuxuu ka helaa maada waxaa ku jirta layaa fiber maadaas waxay sahashaa in calooshu aysan marnaba istaagin ama calooshu aysan ku dhicin waxyaa constipation calo adkaan aysan dhicin oo qofku noqdo qof calooshiisa jilicsan tahay saasoo kale waxaa ku jira vitamin A baa ku jira oo runtii aad u saacida qofka weliba xagga tamarta awoodda saasoo kale waxaa ku jira maadooyin ay ka mid yihiin vitamin C kaasoo isagana aad iyo aad qayb weyn uga qaata xagga difaaca jirka islamarkaasna ka hortaga waxyaabaha maarata infectionada ay keenaan sida viruska iyo bacteriyada oo kale wuxuu kaloo wax badan ka qabtaa xagga dadka qaba cholesteroolka maadaama aan ognahay cholesteroolka inay tahay subag dhiigga ku badan ayuu wuxuu sameeyaa maado ku jirta isaga ayaa waxay samaysaa in ay aad u dhinto subagii faraha badnaa ee ku jiray dhiigga saasoo kale wuxuu yareeyaa dhiigkarka oo waxaa ku jira maadooyin aad u yareeya cusbada faraha badan ee dhiigga ku jirta taas oo mararka qaarkood halis gelisa qofka noloshiisa saasoo kale wuxuu aad u yareeyaa sonkorta marka ay dhiigga raacdo ama ay dhiigga sida kayra caadiga ugu fokato intaas oo dhan iyo in ka badan ayuu leeyahay manaafacaad cambaha waxaa kaloo jira inuu aad ugu fiican yahay oo ay mataqaanaa isticmaalkeeda ugu fiican yihiin u fiican tahay aan lehe dadka qaba lafa xanuunka waxaa la sheegay daraasado la sameeyey in cambaha uu ku jiro calcium badan taasoo dadka lafa xanuunka qaba ama ka caawinaya kala goysyada aad ugu fiican intaas in ka badan oo hadda aan halkan iyo hal qodob aan ku soo koobi karin maadaama ay jirto sooma habboona in qofka uu mataqaanaa isticmaalo ama aan isticmaalno cambaha maadaama uu qiimihiisuna qiimo yar yahay aadna u jaban yahay ayaa waxaa habboon inaad maalintii ka qaadato wax dhan 150 garaam ilaa 100 garaam oo camba ah inaad cabto iyo inaad mataqaanaa cuntoba waa sida meesheedii saa daraaddeed aan wada aadno oon wada qaadanno talooyinkaas caafimaad ee ku saabsan wanaagga iyo manfaca uu leeyahay cambaha tan iyo intaan ku kulmi doonno muuqaalkan muuqaal la mid ah waxaan idinka codsanayaa inaad like saartaan muuqaalka si meel fog gaaro isla markaasna sii sheergaraysaan si asxaabtiina u sii gaadho isla mar ahaantaasna
nalka flow soo tirahdaan si muuqaalada xiga ay idin soo gaaraan waad mahadsantiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu